Asalaamu calaykum asxaabta qaaliga kusoo dhawaada janalkayga cunto karinta iyo macmacaanka ee Mema Cooking and Sweeties. waa walaashin Mema oo idin wado muuqaal cusub. fadlan haddii aad channelku cusub tahay subscribe inoo saar, haddii aad hore inoola joogtayna qaybta hoose ee commentiga ha laga arko. Haka hilmaamin muuqaalka inaa laag ii saarto, waayo laagtu waxay iga caawinaysaa inuu dad badan gaaro. sidoo kale share haddii uu muuqaalka ku cajabiyo oo asxaabtaada la wadaag. aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. waxaa idiin soo diyaariyey bariis biryani oo aan soo sameeyey asxaabta qaaliga. sida ujeedaan bariiskan wuxuu kusoo baxay midabo kala duwan, midab cadaan, midab cagaar, sidoo kale midab guduud ah. waana food colorka lagu daro cuntada, sidaasna waxaa lagu yaqaanaa bariis biryaniga inuu midabo kala duwan uu leeyahay sida ujeedaan. sidoo kale waxaa ku jiro suugo loogu talagalay bariis biryaniga iyo hilibkiisii oo iswataan. hadeertaana waxaan rabaa inaan idin tuso waxyaabihii aan ka sameeyey bariis biryanigeeni. indhihiina hadeer waxaa ugu jeedaan bariis biryaniga oo diyaar ah oo kaliya u harsan tahay in lasoo bandhigo. waxaana rabaa inaan idin tuso qaabkii uu kusoo baxay. sida ujeedaan waa ka saxankii sidan ayuuna kusoo baxay bariis biryanigeeni midabada kala duwan oo aad ujeedaan. idinkuba hadeer waa arki kartaa midabadaasi waxay cadeynaysaa in yacni bariis biryani uu yahay shakliga ama muuqaal ahaan. haddii aragto sidaas ayaad ku garanaysaa haddii bariis biryani ahaan lagu dhaho. waa kaa sida ujeedaan. sidoo kale waxaa ka marneyn ansalaatadii iyo liin iyo moos. anaga haddii anahay Soomaali dhaqankeena waaye inaan ka tagin marnaba haddii aan bariis walba cuneyno ama baasto waxay ahaatabo. marka kusoo dhawaada waxyaabihii aan ka sameeyey. yaanyo iyo basbaas iyo qaando shiishiid ayaa halkan iigu jiro. basbaaska muhiim ma aha, haddii marti kusoo socotona ha isticmaalin. sidoo kale haddii adiga aad diidantahay ama necbantahay iska daa kuleelkiisa. aniga waxaan ugu talagalay inuu kuleel ii noqdo waxyar. xawaaji oo ah nooca chicken masalada ah ayaa halkaas iigu jiro. xawaaji buurbuur duban waaye. sidoo kale huruuda cuntada lagu darsado ayaa halkan ayadana iigu diyaarsan. huruuda cuntadana waa lagu darsadaa. sidoo kale xawaaji dhuudhuub oo duban aan soo dubay waaye. iyo sinjabiil aan ayadana soo tumay, iyo sidoo kale filfishi aan soo tumay. sida ujeedaanba halkaas waxaa iigu diyaarsan xawaaji kaari. asagane xawaaji kaariga waxaa waaye caraf ayuu siinayaa. si kastaba xawaajidan kalama dhacaan oo dhammaantood waa muhiim. iyo jubbihii aad ujeedaan. xawaajiyadu way badan yihiin run ahaantii. markii bariis biryani la sameynaa xawaajiyo badan ayaa loo baahan yahay. haddaa rabta xawaajiga nooca chicken masalada waa iska dayn kartaa noocaas tii aan hadda idin tusinayo, muhiim aha. haddaad doontona waa ku darsan kartaa. marka waa ka asxaabta qaaliga sidaas ayaa rabaa inaan idinla wadaago. xawaaji kaarigana waa noocaaneti aan isticmaalayo oo ujeedaan hadeertaaneti aan idin tusinayo. markii aad rabto inaad bariis biryani sameyso, caano ayaa iyadana ka marneynin oo caano garoor ah. hal bakeeri ayaa isticmaalaya. bariis biryaniga aan rabo inaan sameeyo qiyaas ahaan waxaa waaye iyo qudaarta waxaa loo baahan inay isla ekaato. sida ujeedaan caanahayna bakeeri waaye, waana caano garoor. haddii caano garoor aadan haysan oo dalka joogin, yoogarka caadiga waa isticmaali kartaa. sijilan weliba nooca dhanaanka ah ayaa ah muhiim oo sokorta aan lahayn maadaama suugo la karinayo. halkanna waxaa iigu diyaarsan 2 xabo basal ah. sida ujeedaan basasha muhiim waaye. sidoo kale qorfe ayaa halkan iigu diyaarsan, iyo sidoo kale dhagayar, heel, kabsar iyo tuun 2 xabo. sida ujeedaan basasha iyo tuunta way isla egyihiin, waa min 2 xabo. heelka iyo qorfaha ayagana qiyaas ahaan maxaa la dhahaa waa in oo iska macquul ah oo yacni qiyaasteeda aan ugu talagala waaye. heelka mar walba haddaa basataas caraf ayuu kuu saa-idina, laakiin dhagyarka isku day inaa iska yareyso ana zaayid aadan u badsan. haddii uu bato waxyaabaha dhadhanka ayuu ka bedelaa, wuuna xaraareeyaa. marka yaanyadeeni ayaan rabaa inaan idin tuso. waataa waa soo shiiday. sidoo kale basashii ayadana waan soo jarjaray, weliba aad iyo aad ayaa usoo yaryareeyay basasha. yaanyadii shiishiidi ayaa ku daray oo qaando shiishiid ah.
basashin waata ayada oo jarjaran halkan ayay ku jirtaa asxaabta qaaliga. basasha 2 xabo ayay ahayd sida hore idinkugu sheegayba. waxyaabihii kale waa kuwa ayagana diyaarsan. kabsartii waan soo tumay, tuuntiina sidoo kale waan soo tumay, qorfaha iyo dhagayarka iyo sidoo kale heelka ayaga waxa waaye lama tumaayo. muuqaalkana duubaya xabada dhacaayo. anaga Soomaaliya joognaa waxyaabaas waa iska caadi, waa ka soconeynaa marka waa dhammaan waa ka sida u jeedaanba asxaabta qaaliga xoogaha waxaa moodaa in xabadii ku mashquulay dhageysigooda. yaanyadii waa ka shiishidii ayaa ku soo daray sida u jeedaan waa u siira badiyay wax yar iyo hare waa dhameystiray. qaando ayaa ku jirto oo ayadana sidoo kale waxaa waaye aan isku dhex gelinaya. yaanyadana si fiican ayaa u shiiday. waxaa loo baahan yaanyada si fiican u shiidid si yacni markii aad suugada sameynaysid ee u noqoto suugo maasha Allah dhadhankeedana uu wanaagsan yahay. sidaas ayaan yaanyadana u soo diyaariyay. hadeertaan aan idin tusinayo oo aad u wada jeedaanba. sidoo kale hilibka aan isticmaali rabo waxa waaye rubac hilib waaye rubac hiliba yacni marka aan rabtid inaad bariiska aad kariso nus kiilo hilibka qiyaas ahaan nus kiilo inuu ku ahaada wanaagsan. marka aad rabto rubac inaad kariso rubac. sidoo kale ani qiyaas ahaan bariiska waxaan rabaa inaan ka dhigo rubac iyo tumin inaan ka dhigo nus kiilona ayna dhammaanin sidoo kale rubacna wax yar ay ka badnaato. marka waa ka halkan waxaa iigu diyaarsan digsigii aan ugu talagalay inaan yacni hilibkeena ku kariyo. marka waxaa kusoo shubayaa hilibkii ayaa kusoo shubayaa. sidoo kale waxaa rabaa inaan ku daro biyo aan ku daray qiyaas ahaan waa 2 bakeeri. waxaa rabaa biyahan inuu ku karo ayaa rabaa hilibka oo yacni ku bislaado bisel zaid uu ku noqdo. hilibkan aan karinayo waxaa waaye hilib geel waaye hilib ari ma aha. marka xoogaa muddo ayaa loo sugayaa sida ujeedaa 2 bakeeri biyo ayaa ku daray. marka haddii aad rabto inaad bariis baryaani sameysato waxay haysato ayaad ka sameysan kartaa. hilibka hadduu doono tumin ha noqdo rubac nus kiilo adiga ayay kugu xiran tahay wixii markaas aad hayso. sidoo kale waxaa muhiima inaa yacni wax walba isla ekaadaan. haddaa rubac bariis karinaysid rubac hilib nus kiilo bariis nus kiilo hilib qiyaastaada markasta isla socoto. dabka ayaa saaray hilibka sida ujeedaanba wuu soo karay inuu soo karay ayuu bilaabay hilibkii aan rabno inaan ka sameysano bariis baryaanigeena. cusbo yar ayaa ku daray sida aragteen asxaabta qaaliga iyo filfil iyo shiide oo wax yar ah. markastoo hilib aan sameyna aniga filfisha maba aan ka tago badanaa waan isticmaalaa. hilibka aad iyo aad ayay u carfisaa. halkan waxaa iigu diyaarsan digsigii aan ku sameyn lahaa oo yacni saliidii aan ku shubay suugada aan ku kari lahaa. dhanka kale ayaan saaray labadaba waan isku reed karinaya ama waan isku dhinac karinaya. marka waa ka digsigii aan ugu talagalay inaan saliida aan ku kariyo yacni suugada saliid yar ayaa ku jirto. basashii ayaa kusoo shubay oo 2 xabo ah. qiyaas aan bariiska karina iyo basasha cabir ahaan way iskeenayaan. marka waa ka basasha marka hore waa inaa si fiican yacni u dubtaa oo ka dhigtaa basal midabkeeda brown ah. markuu brown noqdo kadib markaas ayaa ku dareysaa waxyaabihii kale ee loogu talagalay in lagu daro. waayo basasha haddii aad sidaan aad ku darto yacni dhaa suugo ayaan ka dhigaa dhoodi waxay noqonaysaa inay ka dhex muuqato suugada. marka lama rabo in suugadii ay ka dhex muuqato. marka basasha waa fahanteena filayaa waxaa waaye waa isku soo laabaneynaa wax yar kadib marka aan ka dhigo brown marka aan ka dhigo midabkeeda. marka midabkeeda brownka waxaa waaye wuxuu ka saacidaya in yacni suugadaasi ay noqoto suugo aad iyo aad u dhadhan wanaagsan. waa ka waxaa rabaa in marka hore inaa ku daro 2 xabo tuun ah inta aanan yara u sugin. tuunta ayadan waxaa rabaa inaan ku shiilo oo aan midabka ayadana brownka ay la noqoto yacni waayo tuunta laftirkeeda waxaa waaye way carfinaysaa wax walba oo sameysanaysid. tuuntana waa inaa qiyaas ahaan wixii aad sameysanaysa aa u dabaqdaa. 1 xabo tuun aa ku karina haddaa dhahdo ama jab basal bariis waxaa waaye dhadhankiisa 100% sax maaha. marka waa ka waa kusoo laabtay markuu brown ayuu soo bilaabay sida ujeedaan. weli wax yar ayaa usii sugeynaa basasha si yacni brown oo rasmiga loo baahnay u noqdo. waayo midabkaasiti waxaa waaye marka uu gaaro kadib ayaa suugada bilaabi karnaa inaan karino.
sida ujeedaan hadda halkii laga rabay ayay imaaday basasha oo midabkeeda waxay noqotay brown ayay noqotay. Markaan oo kale waxaa ku darsanaysaa yaanyadii aad diyaarsatay oo kale, waxyaabihii kale ku diyaarsanaa, waayo markaan basasha waa diyaar, wax u harsan haba yaraatee ma lahan. Hadda waxaan rabaa inaan kusoo daro yaanyadii loogu talagalay suugada aan karinaynay. sida ujeedaan yaanyada way inoo diyaarsaneed, way shiidneed, waan ku daray. Yaanyada waxaa waaye markastoo dhadhan wanaagsan ayay siisaa suugada, lagama maarmaanna waa ay tahay sida aragteen asxaabta. Aan rabaa inay yacni ku karto yaanyada tuun kabsar ayaan soo tumay, cafwan. marka kabsarta waxaa waaye caraf ayuu ii siinaya suugadeeda, waxaan rabaa inay isku karaan. kabsarta sida ujeedaan waa ku daray, si fiicanna waan isku dhexgeliyay, xoogaa ayaa u sugayaa. waxyar kadib waxaa rabaa inaan ku daro waxyaabihii aan hore noogu diyaarsanay xawaajiga ahaa. marka hadda waa kaa xawaajigii iyo waxyaabihii badnaa aan soo diyaariyey, haddii ahaan lahayd huruudii, marka waa ku daray. hal mar ayaa ku darayaa, waayo hal mar ayaa rabaa inay si fiican ay ugu karto. marka mid waan idinkugu sheegay huruuda, xawaaji burbuur tuman, xawaaji dhudhuub tuman, jubbo, sidoo kale filfil. marka waa kaa dhammaantoodaba hal mar iskula daray. huruuda waa huruuda caadiga isticmaalno, iyo sidoo kale xawaaji kaar waa ka marneynin, xawaajiga jiki masalada asna ka marneynin, dhammaantoodaba hal mar ayaa iskula shubay. marka u sugeynaa xoogaa ilaa muddo inuu si fiican usoo karo, ku dhawaad waxaa waaye 20 daqiiqo inaaf way ku filan tahay. marka waa kaa waa sii dabooleynaa, marka kadib ayaan insha Allah aan kusoo laabanayaa. sida ujeedaan asxaabta qaaliga, waxyar kadib 20 daqiiqo maraa la gaaray, waa kusoo laabtay suugadii. marka suugadeena waxay bilaawday inay si fiican usoo karto. caanihii ayaa ku darayaa, waayo caanaha dhadhan wanaagsan ayay siinayaan, waana garoorka nooca dalka waaye. haddii ahaysan hore waa u sheegay, waxaa isticmaali kartaa yoogarka nooca dhanaanka aanan sokorta lahaynin ayaad isticmaali kartaa haddii aad meelahaas joogtidoo kale. laakiin haddii aad Soomaali joogto labadaba waa isticmaali kartaa, waayo labadaba waa helaysaa. marka waa kaa caana garoorka xoogaa waxaa waaye dhadhanka suugada aad iyo aad ayuu u saxayaa. marka maasha Allah suugadeena waxaa sugeynaa marka ilaa iyo xoogaa daqiiqada ayaa usii sugeynaa in yacni si fiican ay usoo bislaato, oo yacni suugada ay noqoto suugo adag. sida ogtihiin suugo bibiye biryaniga waxaa waaye dhowda wuxuu ka noqonayaa xoogaa sida la rabo ma noqonayo. marka suugada waa in la bisleeyaa, yacni biyaha yacni gursataa si ay u noqoto suugo degan. hadda hilibka waa kaasaa biyihii wuu soo gursaday, wax biyo ma lahan. sida ujeedaan hilibkeena wuu bislaaday, suugada ayadana sidoo kale way bislaatay muddo 10 daqiiqo kadib, iyo caanihii si fiican ay iskugu bislaadeen. cusbo yar ayaa ku daraaya, cusbada dhadhan ayay ii siinaysaa. sida filfisha oo kale iyo jubbaha, waxyaabo badan ayaa ku jiro suugada. marka hilibka ayaa rabaa in ayadana aan kusoo kor daro, balse ilaa iyo 5 daqiiqo ayaa u sugayaa inta ay yacni dhageyso. halkan waxaan sii saartay dhanka hilibka aan ka dajiyay, waxaan sii saartay biyihii aan ku kari lahaa bariiska, qorfe ayaa ku daray. sidoo kale waxaa rabaa inaan ku daro dhagyarkii iyo heelkii iyo diyaarsanaa iyo filfishii iyo cusbadii. bariiska waxaa u karinayaa sida baasto oo kale, waa la miirayaa markii uu karsamo. haddeertaan waxaa ku daray dhagyarkii ayaa ku daray. sidoo kale waxaa rabaa inaan ku daro dhagyarka heelkii ayaa ku daray. marka waa idin sheegay sida baastadoo kale ayaa loo miirayaa. biyaha waxaa waaye inay xoogaa bariiska inuu biyaha xoogaa bato ayaa la rabaa, oo yacni biyaha uu soo kormaro. waa sii daboolaya, waxaa la rabaa biyaha inay soo karaan sida in baasto lagu shubayo oo kale usoo koraan. marka markay soo koraan kadib ayaa insha Allah bariiska ku shubaya. filfishi waa ka ayadana waa ku daray. marka bariiskeeni waxaa waaye waa la miiraya sida baastada. cusbo ayaa u harsaneed, waa ku daray, waa usii daboolaya ilaa iyo daqiiqada yar ayaan u sugayaa. marka waa ka halkan waxaa igu sii diyaarsan bariiska mar hore aan dhaqay, oo markaan uu ii qalalay furfur ayuu yahay. sida ujeedaan bariiska waxaa waaye markii la dhaqo isla marka hore ma looga shubo digsiga. waxaa la rabaa in yacni bariiska aa qalajiso oo qaleel aa ka dhigto. biyihiina waa kaa way soo koreen, kadib waxaa rabaa inaa hadeertaan aan ku daro bariiskeeni si ay u karo bariiska.
bariiska waa ku shubay. Markaan waxaan rabaa bariiskeen inaan sugno xoogaa daqiiqado ah si bariiska aan u siino waqti yar oo ku bislaado. biseel zaidna lagama rabo, yacni furfur oo ceyriin ahna looma baahno. adiga ilaa iyo dhexdhexaad ahaan in yacni bariisku u noqdo mid dhexdhexaad ah. marka saliid yar ayaa korka uga daray maadaama suugada ay leedahay saliid ku filan. ma rabo bariiska in yacni saliid aan ku daro oo badan, mana rabo inuu saliid la-aan ahaado. marka si fiican ayaa isku dhexgeliyay saliida, heelkii, qorfihii, filfishii iyo bariiskii. sida ujeedaan dab fiicanna wuu saaran yahay. marka xoogaa yar ayaan rabaa inaan siiyo. bariiska ma idin sheegay waa la miirayaa sida loo miiro baastada oo kale, maxaa yeelay inta uu biyaha ka gursanayo lama sugaayo. biyaha iyo bariiska waxaa cabir badan, biyaha ayaa cabir badan. waa ujeedaan biyaha ayaa koreeyo, bariiska ayaana hoos ayuu jiraa. marka bariis biryani aa sameyneysidna biyaha laazim waa laga miiraya. intaas waxaan filayaa inaa fahanteen dhammaantiinaba. sida ujeedaan waa ka bariiskeenina wuu karayaa run ahaantii. waxba uma dhino bariiskeenina sidaan ayuu ku bisil yahay. asxaabta qaaliga bariiska waa diyaar, kaliya waxaa rabaa inaa biyaha kasoo miiro kadib ayaa isku soo laabaneynaa. balse ka hor waxaa rabaa suugadii dabka dhinaca kale ii saarneed inaan ku daro hilibka. waayo waqtiga hilibka lagu dari lahaa ayay soo gaartay. sida ujeedaan waa ka suugadii hilibkii ayaa ku daray. waxaa rabaa inaan isku kariyo oo aan muddo usii sugo hilibka iyo suugada intay isdhexgalayaan oo aan qalajiyo. waayo suugada marka hore waa idin sheegay waa inay qaleel noqotaa si bariis biryaniga uu kaaga noqonin sida maraq camal ayna u noqonin, suugada ay u dhegsanaato. waayo isdhexgalkooda ma la rabo inuu noqdo sida maraq iyo bariis la isku daray. waxaa rabaa bariis iyo suugo la isku daray. halka aragteen waxaa iigu diyaarsanaa bariiskii oo aan soo miiray, shabaqaas yarka ayaa ku miiray. waayo bariiskeena hadeertaan waxaa rabaa inaan ku kor daro suugadii oo aan digsiga waxyar ku reebtay. marka bariiska waxaa waaye waa inaa miirtaa, welibana biyaha dhan aad ka bixisaa. marka waa kaa anigana waa kasoo bixiyey biyihii dhammaa. suugo yar ayaan ku reebay digsiga, inta kale suugada meel kale ayaa ku shubtay. bariiskii ayaana korka uga shubay. xoogaa bariis ayaa ku shubaya, kadib suugaa ku shubaya, kadibna bariisa ku shubaya. waxaa rabaa inay yacni meelna suugo meelna bariis, meel suugo meel bariis ay noqoto kala kor marmaraan. dabaqad iskor saarsaaran ayaana loogu talagalay bariis biryaniga. suugadeenina waa kaasaa bariiska ayaa ku kor shubay. waxaa kaloo rabaa inaa yacni suugadii kale ee haafka ee ii hartay inaa ku shubo bariis biryaniga oo korka ka saaro. inta kale bariiskii hartana gadaal ayaa ka saaraya. marka waa ka tartiib ayaa u saaraya bariiska. bariiskan waxaa waaye furfur waaye sida aragteen. waxaa loo baahan yahay inuu furfur ahaado, ceyrin noqonin, biseelna uusan noqonin. cadaanna wuu yahay midabkiisa. waxyaabo kale laguma daraa, isaga biyo kaliya ayaa lagu kariyay iyo qorfaas iyo heelkaas iyo dhegeerkii cusbada iyo filfishi. marka wuxuu taagan yahay wixii sidii loogu talagalay ayuu taagan yahay bariis biryaniga. waa kaas suugadii inta ii hartayna korka ayaa ka saaray. waxa kale oo aan rabaa bariiska ii haray asagana inaa korka ka saaro. dhadhan ahaan iyo caraf ahaan runaantii lagama sheeke karo bariiskaneti. aad iyo aad ayuu u caraf badan yahay, sidoo kale dhadhan ahaana aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay. haddii aad tijaabisano waad ka helaysaa xaqiiqatan. kalarkii ii diyaarsanaa waa ka nuuca gaduudka ayaa ku shubay. sidoo kale nuuca kale ee cagaarka ayaa rabaa inaa ku daro. waa ka cagaarkii wuu ii diyaarsanaa, isagana waan ku daray. sidoo kale waxaa rabaa shacfaraan inaa korka uga shubo, asagana jaalo uu dhinaca ka noqdo, dhinac cagaar dhinaca gaduud sida lagu yaqaano bariis biryaniga oo loogu talagalay inuu kusoo baxo. run ahaantii aad iyo aad ayuuna u qurux badan yahay markii food kalarka lagu daro bariis biryaniga. waayo wuxuu noqonayaa midabo kala duwan. waxyar ayaa waa huurinaya ilaa iyo 15 daqiiqo ilaa iyo 18 daqiiqa soo huuriyey. marka waa ka waqtigii aan ugu talagalay huuriska waa soo huuriyey. bariiskan waqtigiisa wuu qaatay, kaliya waxaa u harsan in la guro oo saxankii loogu talagalay lagu guro. bariis biryaniga markaasaan u saarto waa inaa huurisa.
marka maasha Allah waa kaasa sidan ayuu kusoo baxay bariis baryaanigeeni. Wax uma baahno oo oven ama foorno uma baahna, dabka caadiga ayaa ku huurin kartaa hadaa rabto oo yacni waxaa saareysaa bacda aluminiumka ayaa kor ka saari kartaa. Haddii markaas aadan haysanna waa ka maarmi kartaa sida hada anigoo kale daboolkiisa ayaad ku huuri kartaa ilaa 18 daqiiqo 15 daqiiqo enough dabka adigoo u gaabinayo. Marka waa kaasa waa soo gurayaa bariis baryaanigeeni diyaar waaye, wax u harsan malahan. bariis baryaaniga sida loogu talagalay ayuu kusoo baxay, inaba caadi ma aha. Dhan suugo, dhan sidoo kale food colorkii, dhan cadaan, dhan gaduud, dhan waxaan ku dhahay shacfaraanka jaalo, dhan marka waa kaa hadda indhihiina waa ku arki kartaan bariis baryaanigeena sidan ayuu kusoo baxay. aad iyo aadna waxaa waaye waan kaaga mahad celinaya intada aan karinaaye waqtigiina aad igula socoteen, aad igu bixiseen iyo sida qiimaha badana ii daawaneysaan. sida ujeedaan bariis baryaaniga wax u harsan malahan, kaliya waxa u harsan in la cuno. waqtigiisii cunitaanka ayuu joogaa, diyaar waaye. waxaa filayaa inaad ka hesheen qaabka uu soo diyaariyey bariis baryaaniga, aad iyo aadna aad ula dhacdeen. run ahaantii waan kaaga mahad celinaya heerka ay soo gaarsiiseen iyo mar walba asxaabta qaaliga igu soo biireyso iyo sida wacan ay soo dhiirigelisaan. waxaa idin leeyahay kun iyo kow jeer haddii aad ii mahad celiyo waxaa waaye ma soo koobi karo. intadaas ayaa iga badan. waxaa waaye hor u socod ayaa yacni qof horey loo wado inahay ayaa dareemaya. waan idinkaga mahad celinaya kun iyo kow jeer. channelka subscribe inoo saar, aad iyo aadna u mahadsantihiin.